السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad asxaabta qaaliga dhamaantii baan salaamay. Fadlan haddaad tahay markii waan soo booqatay subscribe saar sidoo kale like na saar. Insha Allah billahi kareem halkan waxaan maanta ku faaqi doonaa ama magaranayaan ku sheegi doonaa yani qaabka Bible account u samaysan lahayd. Horta waad ogtahay qofka hadduu Soomaaliya joogo sidee magaranaysaa Bible hadduu ku samaysto cilad baa haysata. cilada haysata waxa weeyaan Bible-kii wuxuu ka diri karaa laakiin se wax ma garanaysa loogu soo diri karo haba yaraatee ma jirto in adiga lacag lagu soo diro taasi ma dhacayso caqabada ma garanaysa ama ma garanaysa problem ka haysta Soomaalidana waa kaas dhalinyaro aad u badan ayaa ma garanaysa igu soo meeshan gareynayay ama ma garanaysa aad ii soo weydiinayay su'aalahaas ku saabsan yani sida ma garanaysa Bible loo sameeyo Bible account. haddaba maanta insha Allah billahi kareem halkan waxaan kugu tusi doonaa si aad Bible u samaysanaysid. haddaba waxaan ku tusiyaa maanta hab adigu aad lambarkaaga caadiga isticmaalaysid adigoo laakiin isticmaalaya address kale iyo dal kale lacagtaadana hadhow lagu soo diri karo payment ma garanaysa gift lagu soo diri karo get paid lagu soo diri karo. marka adaan u baahanayn wax Kenya ama ma garanaysa ama meelaha kale aan u baahanayn ama qof kale lambarkiisa aan u baahanayn oo code aan kaaga xidhnaanayn baan ku sheegaya insha Allah billahi kareem. markaad koobaad saa u soo gashid Bible-kaaga halkaas waxa kugu qormaysa bible.com somtaasi waxa weeyaan yani waa SO waxa looga jeedaa Soomaaliya. marka hadaba waxaad soo furan doontaa yani page-kan baa soo furan doontaa ama ma garanaysaa linkigaas ayaa soo furan doontaa ku qoran tahay bible.com/ph oo looga jeedo ph kaas oo looga jeedo Philippine. maanta waxaan isticmaali doonaa yani address ama ma garanaysa dal ma garanaysa ah Philippine ayaan isticmaali doonaa addresska iyagu xabana halkan ma ku soo dhigi doonaa insha Allah billahi kareem qoraalka ama description ku soo dhigi doonaa ama ma garanaysa halkaas screenshot ka qaadan doonta. marka search ba siin doonta search marka siisid yani sidan buu kugu soo qormi doonaa qaybta wada aragtaa bible.com/ph ayaa kugu soo qormi doonta. waayahay qaybtan hadaba waxaad doonaysaa in aad samaysatid Bible active ah oo lacag lagu soo diri karo lacagna aad kana dirsan kartid ay insha Allah billahi kareem halkan kugu wadaagi doonaa. waxa taawado halkan ay ku qoran tahay yani talaabooyinkan aad marayo mar si aad ma garanaysaa adigu aad ma garanaysaa u samaysatid account Bible ah oo active ah aad u samaysatid. qaybtan baa taaban doontaa ay ku qoran tahay sign up for free ayaa taaban doontaa halkan ay ku qoran tahay sign up for free marka taabatid qaabkan baa ku soo baxaya يعني labadan option ba ku soo bixi doona oo ah personal account iyo ma garanaysaa iyo business account keeba tahay. marka inta badan waxa la qadariyaa ama ma garanaysaa shirkadda Bible ku aad u jeceshay business account-ga. marka waxa dooranaysaa business account baad dhagsiinaysaa kadib next baad leedahay next marka tiraahdid qaabkan ba ku soo bixi doona kadib waxa lagu leeyahay enter your email address ama ma garanaysaa Gmail sida u taqaanid ayaa isticmaalaysaa shaqeynaya oo aad garanaysid. markaad emailkiis aad soo gashatid halka ma garanaysaa ku qorantay continue ayaad ku soo dhufan doontaa. waxa ku soo furmi doontaa qaybtan baa ku soo furmi doontaa kadib halkan waxa lagu oran doonaa yani password gasho passwordkaasna waa inuu ahaadaa password yani mid ma garanaysaa strong password waa inaad gashataa haddii kale wuu ku diidayaa passwordkaaga waa inaad xarfo iyo ma garanaysaa magac iyo wax ku dartaa iyo nambaro. marka inta samaysid halkan baad ku qoran tahay halka yar baad click siin doontaa click marka siisid waxaad samayn doontaa inaad continue tiraadid continue marka tiraadid ka horeysiisana number ama xaraf capital letter xaraf weyna kadib continue baad siin doontaa continue marka siisid yani qaabkan buu kugu soo furmi doonaa yani waxa lagu oran doonaa business contact waxa samayn doontaa inaad samaysid magacaaga hore iyo magacaaga hore iyo magacaaga daba barta gelin doontaa. halkan waxaad gelin doontaa legal business name haddii aanad business ama lahayn waxaad ka gashan doontaa magaca la magaca doontid aad soo gelisid magacaagii hore iyo magacii aabaha iyo ma garanaysaa business magaca saddexaad ka gasho hadda doonaysid halkan waxaad gelin doontaa hadaba ay ku qoran tahay number waxaad isticmaali doontaa lambarka adiga taleefankaaga isticmaali doontaa yani kuma xidhna inaad lambarkii qofkii lahaa isticmaashid kani kuma xidhna lambarkaaga saxda baa isticmaalaysaa kadib saas u dul taabanaysa barta 63 ku qoran tahay Soomaaliya ka soo raadin doontaa Soomaaliya marka soo dooratid lambarkaaga barta gashan doontaa caadiga ah. markaad gelisid lambarkaaga business address baa lagu yiraahdaa address baa laga doonayaa. hadaba waxaad isticmaali doontaa address-kan aan barta gelin doono ayaa isticmaali doontaa. marka isticmaashid adigu screenshot ka qaadan doontaa ama description insha Allah ku soo dhigi doona address-kan baad isticmaali doontaa
addresskan waxa lagu street name house numbers ee laga doonaya marka addresska barta waxa gelinaysaa Freestar Arcade marka inta gelisid halkan waxa lagu yiri geli branch district geli Mandu City baad leedahay tanna sideeda saas kaga qornaato waa iska dhaafisa waxa lagu yiri city geli magaalada waxa gelinaysaa Manila adu waxaan dhameystiran screenshot ka qaadaan waxaan ku soo dhigi doonaa insha Allah description-ka waxa lagu yiri zip code dooro zip code kam garanaysa inaga +25 waxa weeyaan +252 marka waxa dooranaysaa yani kan waa Philippines bay joognaa Philippines weeyaan marka dalka Philippines waxaan dooranaa yani zip code kam dooran doonaa addresskiisa kun zip code weeyaan 130 halkan ay ku qoran tahay dooro region ama gobol waxa dooranaysaa isla Manila dooranaysaa Manila ayaan bartan ka soo qaban doonaa Manila waata marka Manila dooratid halka waxa lagu leeyahay yani lacagta isticmaalaysid waa noocma lacagta beesada ee Philippines isticmaalaysaa may baad leedahay halka ay hoosa taabanaysaa kadib US dollar ay dooranaysaa marka intaas samaysid waa kaas imaka screenshot ka qaado ka soo dhameystiran ama waxa ku soo dhigi doonaa insha Allah description-ka waayahay agree and continue waa sii taaban doontaa agree and continue marka taabatid waxa ku soo furmi doonaa waxa lagu yiri business type dooro businesskaagu noocu yahay dooro halka yar ba taabanaysaa kadib waxa dooranaysaa individual ayaa dooranaysaa bartan ay ku qoran tahay ka koobaad ayaa dooranaysaa marka dooratid waxa lagu yiri product or service kaywar noocu yahay waxa ku qori doontaa business service aad ku qori doontaa halkaas ama waad ku search garan doontaa business waa qaybta dhexe waxa ku soo baxayba business service ayaa ka sii dooran doontaa business service marka dooratid halka waxa lagu leeyahay waa website waa iska dhaafi kartaa hadaan website lahayd oo waa optional isagu ma laha garanaysaa wax lagu khasbayo kadib continue baad leedahay waana si easy qaybtan ugu dambaysa ku imanaysa qaybta waxa lagu leeyahay waa easy date of birth xilliga dhalatay halka aad doontid wax iska gashanaysaa waxa la xilliga dhalatay 1999 1996 waxa doontay aad gashanaysaa marka inagu insha Allah wax gelin doonaa 99 kadib month baad dooranaysaa bishii oo kale bisha marka iska dooratid xil maalinta dhalatay waxba iska buuxinaysaa halkan way ku qoran tahay nationality yani nationality-ga tahay waxa weeyaan adigu Soomaali baan inagu nahay Soomaali baad dooranaysaa Soomaaliya marka bartan ka soo doorano qaybtana waxa ka soo dooran doontaa ay ku qoran tahay identity document waxa ma garanaysaa ay ku dhufanaysaa marka national ID waxa kaliin passport iyo driver license marka waxa ma garanaysaa inta badan ay Soomaalidu haysataa waa passport xitaa hadaan adigu haysan aabaha adeerka walaalka inta uu haystaan marka passportka easy wad helaysaa cid kasta aad passport weydiisid marka passport waxa laga baahan yahay number wax kale laga baahna passport ba taabanaysaa passport marka taabatid halka waxa gelin doontaa passport numberkaaga passportka qofka garanaysa gurigiina jooga numberkiisa gelin doontaa passport numberku waa ka bida ka bilaama bi marka inta soo samaysid halkan waxa ku qoran home address ayaa ku qoran marka intii dib ku weydiinaya yani waa intii garanaysa addresskii dib u gelinaysid halka yar ba sax saaraysaa sax marka saartid tigtaar ba soo saaraysaa kadib waa kuwan intii aan soo dooranay ama ma garanaysa addresska soo gashanay kadib submit baad leedahay submit marka tiraahdid waxa ku sameysmi doona website bible-kii baa toos kugu sameysmi doona bible-kaagi sidan buu soo furmaya waa kan waxa lagu yiri welcome to the bible platform where you will find tools that can help you business grow and succeed yani saas lagu guuleystay okay waxa muxuu baad leedahay okay marka tiraahdid yani bible-kaagi sidaas ku sameysan waa kan imka leeyahay farkayso barta ku qorantay balance waa 00 yani waa kaas waayahay currency-ga waa USD iyo Philippine weeyaan waayahay haddaba waa kan saas u garanaysaa imaka ku dhameystiran yahay bible-kaagi oo garanaysaa waxa sameyn kartaa inaad qaybtan imaka hadeen saas kala fogeyno waa kan xogtaydii oo dhanba waatan bible-kaagi imaka saas ku dhameystiran yahay qaybtan garanaysaa waa saas ku dhameystiran tahay haddaba waxa doonaysaa inaad email-ka aad confirm ka dhigtid kadib see details ba taaban doontaa see details marka taabatid qaybtan ba ku soo baxi doonta gmail-kaaga kadib waxaad ku dhufan doontaa gmail-kaaga dhagkiisa ku dhufan doontaa kadib halkan ay ku soo qoran tahay confirm this email address ayaa taaban doontaa marka taabatid waxa ma garanaysaa waxa lagu yiri check your email inbox to confirm yani email-kaaga ma garanaysaa ayaan kugu dirnay warqad marka bal check garee si aad u confirm gareysid ama aad confirm uga dhigtid
waa kan imika garanaysaa warqadda way noo soo dhacday warqadda soo dul taabanaysaa kadib waxaa lagu yiri active your garanaysaa account kadib halkan baad click ku siin doontaa click marka siisid halkan waxaad gelin doontaa passwordkii garanaysaa ku samaysatay bible-kaaga passwordkiisa u gelisid waxaad leedahay confirm email address kadib checking your information baa leeyahay kadib active baa laga dhigayaa garanaysaa ama garanaysaa confirming laga dhigayaa kadib qaybtan baa garanaysaa ku soo baxaysa dib garanaysaa bible-kaaga saasuu active ku noqonayaa marka emailkii iyo wixii aad soo samaysatay talaabada soo martid imka qaybta waa tan money in garanaysaa waxba ayna may soo gelin money outna waa kuwan oo garanaysaa wax ma garanaysaa inaga baxay waxna soo galay toona ma jiraan waayo iminkan cusub iminkan sameeyno waa cusub yahay marka halkan baad hadhow garanaysaa kaga xiranaysaa yani inaad ku samaysid yani ku xiratid يعني باقي كاري وحنا عصا كلا دوك سي خدتي taasna de qof walba garanaya marka insha Allah billahi kareem saas garanaysa ayaad ku sameeysan karaysaa bible account. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.